madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo diyaariyey qorshe dagaal oo ka dhana siyaasiyiinta caqabada ku ah dagaalka ka dhanka ah ururka al-shabaab. furmaha hore ee dagaalka gobolka hiiraan oo macawiisley hor leh ay gaareen iyo abaabul dagaal oo xoog leh oo mar kale halkaasi laga dareemayo. ciidanka muduloodna waxaa saacadahana soo aadan la filayaa in ay si rasmi ah dagaalka u galaan deegaano muhiim ah ayay doonayaan inay kala wareegaan ururka al-shabaab. haddii ay tahay markii ugu horreysay oo muuqaalkan aad ka daawanayso beejkeena galwareed nagu soo bir like iyo falowdhe muuqaalka la sii wadaag asxaabtaada kale. mar kastaa iyo meel kastoo aad joogtana waxaan kaaga mahadcelinayaa sida muuqaaladeena halkan aad uga daawato. waalidweynaha qurbaa ku nool waalid ka faa'iidayso fursaddan ubadkaaga gee maxadkan ay ka baranayaan barashada qur-aanka kariimka iyo culumta shareecada islaamka waana maxad kuu furan 24 saacadood iyo 7 maalmood oo usbuuca waxaana ubadka loo dhigayaa barashada qur-aanka kariimka barashada akhriska higaada luqadda carabiga barashada afkeena Soomaaliga iyo barashada culumta shareecada islaamka sida kutubta fiqiga xadiista iyo tafsiirka waxa sidoo kale waalidiinta la baraya isla markaana laga saxaya at-tahiyaadka salaada iyo aayad kursida waalid hadda ka faa'iideyso oo hadda isqora maxadka tartiilul qur'aan online oo ah dugsi fac weyn oo ay sanad kasta ka qalin jabiyaan ardayda kala duwan ee caalamka ku nool ballanteenu waa inaynu hore ula xiriirno maxadka tartiil qur'aan online. madaxweynaha Soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa si weyn uga fakaraya in dagaal toos ah uu la galo siyaasiyiin loo arko inay caqabad ku yihiin dagaalada ka dhanka ah ururka al-shabaab. waxaana madaxweynaha uu ka fakarayaa odayaasha dhaqanka siyaasiyiintaas ay ka soo jeedaan in uu kala hadlo arrintan islamarkaana uu si toos ah u dalbado inay faraha kala baxaan howlgallada ay iska kaashanayaan macawiisleyda iyo kuwa xoogga dalka ee deegaano badan la doonayo in looga xoreeyo ururka al-shabaab. siyaasiyiin badan ayaa waxa ay diidan yihiin deegaanadooda in dagaallo ay ka dhacaan islamarkaana weeraro xagga cirka ah laga fuliyo iyadoo ay ku andacoonayaan dadka ay ku matalaan siyaasadda inaysan aqbali karin haba yaraatee in dhibaatooyin loo geysto. waxaana arrintan ay noqotay caqabad soo korortay marka loo eego howlgallada dowladda ay doonayso inay ku soo afjarto bilahana soo aadan kooxda al-shabaab. siyaasiyiintan qaar ayaa loo arkaa inay doonayaan in dhaqaalo ay ka sameeyaan dagaaladan inta aysan bilaaban taasi oo madaxweyne xasan sheekh maxamuud si weyn uu uga xumaaday. dhinaca gobolka hiiraan macawiisley hor leh ayaa gaaray furmaha hore ee dagaalka iyaga oo doonaya inay xoojiyaan ciidanka xoogga dalka iyo macawiisleydii horey furmaha dagaalka ugu sugnaa iyaga oo doonaya in ay ka dhabeeyaan rajada shacabka ee ah in al-shabaab lala dagaalamo lagana saaro deegaanada weli ay ku sugan yihiin. gudoomiye cali jeyte cismaan odayaal dhaqan xildhibaano wasiiro heer dowlad goboleed iyo heer federaal iyo mas-uuliyiin kale oo reer hiiraana ayaa furmaha dagaalka ku sugnaa bilihii aynu ka soo gudubnay iyadoona ciidamadan macawiisleyda ay ka imaanayaan deegaano ka tirsan gobolka hiiraan iyo weliba gobolada jaarka la ah sida galgaduud oo galmudug ka tirsan iyadoona gudoomiye cali jeyte cismaan uu ku hanjabay in al-shabaab lasoo afjari doono. sidoo kale xildhibaan sambalooshe ayaa isaguna qaba in xilligan reer hiiraan ay heleen cudud ciidan oo dheeraad ah kuwo kalena ay sugayaan al-shabaabna lasoo afjari doono. dhinaca beelaha mudulood ciidankoodii ku sugnaa cadalle tan iyo xalay waxa ay wadeen dhaqdhaqaaqyo aad u xooggan oo ay ku doonayaan in ay dagaalka si rasmi ah ugu biiraan islamarkaana waxa ay doonayaan inay gacanta ku dhigaan deegaano istaraatiiji ah oo gacanta ay ku hayeen in ka badan 15 sano ururka al-shabaab oo dhaca gobolka shabeellaha dhexe. dad ku sugan aagga cadalle ayaa warbaahinta u sheegay in dhaqdhaqaaq xooggan oo military tan iyo xalay halkaasi ay ka jireen. saraakiishii qaar ee ku sugnaa cadalle ayaa soo aaday dhinaca balcad islamarkaana gacanta waxa ay ku dhigeen deegaano isku xereeyay labada shabeelle sida xawaadley iyo tuulooyin hoos yimaada. xaadoole iyo weliba saraakiil kale ayaana ku sugan halkaasi iyaga oo doonaya inay bilaabaan dhaqdhaqaaq xooggan oo al-shabaab ka dhan ah oo horay u sii socda. al-shabaab waxa ay wajahayaan mid ka mid ah marxaladihii ugu xumaa ee soo mara tan iyo jiritaankoodii
muddo ka badan 15 sano oo koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya aad ay ugu xooganaayeen. muuqaalkan haddii aad dhamaysatay la sii wadaag asxaabtaada kale. mahadsanid. waalidweynaha qurbaa ku nool waalid ka faa'iideyso fursadan ubadkaaga gee maxadkan ay ka baranayaan barashada quraanka kariimka iyo culumta shariicada islaamka waana maxad ku furan 24 saacadood iyo 7 maalmood oo usbuuca waxaana ubadka loo dhigayaa barashada quraanka kariimka barashada akhriska higaada luqadda carabiga barashada afkeena Soomaaliga iyo barashada culumta shariicada islaamka sida kutubta fiqiga xadiiska iyo tafsiirka waxa sidoo kale waalidiinta la baraya isla markaana laga saxaya at-tahiyaadka salaada iyo aayad kursida waalid hadda ka faa'iideyso oo hadda isqora maxadka tartiilul qur'aan online oo ah dugsi fac weyn oo ay sanad kasta ka qalin jabiyaan ardayda kala duwan ee caalamka ku nool ballanteenu waa inaynu hore ula xiriirno maxadka tartiil qur'aan online